waad ogtihiin sida loo abiyuusay dalkan awoodda sida loo abiyuusay hal qof kaan rabo bax kaan rabo fariiso kaan rabo ha igaba soo gelin beledka saan rabaa yeelayaa markaasaa waxaa la abiyuusay qofkii muwaadinka ahaa qabiilkii odaygii qabiilka hor socday wax alla wax lagaga tegay meesha ma jirto ceeb un hadday adduunka jira fadeexo way soo dhacday meeshaas nin soo tukanaya jumcadii masaajidkan soo tukanaya intuu soo maqnaa la yidhi doorashadiiba way dhacday dalkan mid qol ku xiran mid qol ku xiran oo inta qol lagu xiray deedna maqlay oo sacab waa la doortay hebel baa la doortay waa musharax meeshan uu fadhiya oo waliba asagii la yiri asagii baa waxa la leeyahay meesha ku xidhnaa wuu tanaasulay hebel baa sharaxnaa wuu tanaasulay meesha uu ku xidhay dalkan way ka dhacday si kasta oo wax loo abiyuusi karay ayaa wax loo soo abiyuusi marka maalin dhexdeer ahayda waxaan dhahay habeen dhexdeer ahayda waxaan idin nimayahow doorasho dadban baa laga guurayaa baa la yidhi nolosha dadban oo dhan aan ka guurno doorashada kaliya ma dadbanee nolosha dhan aan dadbanee nolosha dadban nolol toos aan aadno marka waxaan aaminsanahay arrintaasi dalkan dee dowladnimo waan iskaga haysanay waxay ahaataba laakiin waxaa la soo gaaray xilligii ضميركنا صحدي وديدي لها وحاس ضميرك صحدا وحدي يعني حديث باجر النبي عليه الصلاه والسلام والشيء والاثم ما حاك في نفسك وتردد قف wax dambiga sidiisa dambiga inuu dambi yahay inuu san dambi yahay waxa lagu kala gartaa dambigu waa waxa dhibsanayso adiga waad hoosta hadaad naftaada weydiiso inuu dambi yahay waad garanaysaa markaas waliba waxaad nacaysaa dadku inay kugu arkaan marka qofka waxaas abuse-ka kursiga ku qaatay damiir kale xataa kuma raaxaysanayo uu necab yahay ma jeclaanayo waxaan qabaa marka hawshaas iyada ah dadka Soomaaliyeed cid ayna rabin in la dul dhigo oo lagu qasbo ayay keenaysaa aynu dadka Soomaaliyeed biyo waxa la yiraahdaa sacbadaada looga dhargaay dadka Soomaaliyeed awoodooda aanu celin waa waxa ka shaqeynayno oo dawladda ay ka shaqeynayso